waxaana leeyahay Soomaali ha noolaato cadowga Soomaaliyeed ha jabo dhibaatada Soomaaliya ay ku jirto ha ka baxdo dadka Soomaaliyeed ee maanta imaqlaya waxaan hawada u soo marinayaa arrin aad iyo aad xasaasi u ah oo lagama maarmaan waxaan hor yaalla dawlad horaan jabinay wixii ka dambeeyay dawlad fiican waa dhisan weyn sababta waxa weeye dumintaan naqaanaa ee dhismaha ma naqan waa inaan ka taxadirnaa marka mar dambe in aanan dawlad dumin waa inaan iska ilaalinaa kuwa isku dayaya in naloo soo isticmaalo oo shisheeyaha soo isticmaalo ee aan doonayn in aan dawlad buuxda oo cagaheeda ku taagan ee adduunka la jaanqaada aan noqon wararka intooda badan waxay u dhacayaan warar Soomaalinimo annaga waxaan nahay reer Hiiraan waxaan ka kacnay xaq iyo xuquuq reer Hiiraan ka maqan ayadiina baadi goobkeedu ku jirnaa waxaan rajaynayaa inaan si fiican u dhameystiro ilaahay hadduu yiraahdo reer Hiiraan waxaan u sheegayaa haddaad doonaysaan in magaciina oo jiro masiirkiina oo jiro meel walbo aad joogtaan mid ahaada haddii kale sida maanta taalla imaanaysa inna la kala qaybiyo oo nala xukumo inna la kala qaybiyo oo wixii carruurteenna aan siin lahayn dad kale ay carruurtooda siiyaan taas waxay keenaysaa marka arka sida Hiiraan ay u taallo wejiga ay leedahay waxqabadkii laga rabay iyo horumarkii laga rabay iyo faraxii ay ummadda farax gelin lahaayeen baa maqan waxaan ka soo tegey dad iyo dal baaba dhibaataysan dhibtaasna waxay ka timid mas'uuliyad xumo maamulka ragga haya cisbitaal nooma dhisna caafimaad ma jiro waxbarasho ma jirto beerihii abaaraa ku habsatay jilaal xoolihii waa dhammaadeen wax bini aadana oo maamul sheegta oo ummaddaas baaba'aysa u soo jeeda ma jirto waxaan leeyahay marka dadka mas-uuliyiinta oo mas-uul isku sheegga ah ee aan la dhihi karin waa mas-uuliin hadday dadkooda wax tari waayeen dadkoodana soo raaci waayeen sidee rabaan dadka inay ku hoggaamiyaan daraad waa maqlaayey waxa dabageed oo ku hadlaayay walaalkay aqoon daraa u geysi qofka anna waa caynayaa oo walaalkiisaan ah cali guudlaawana soo dhawow uu leeyahay waa ayaan darro weynoo meesha taallo wey ninkii guriga la deganaa oo la dhashay oo taladiisa diida nin kale uu taladiisa qaadanaya wuxuuna rabaa inuu dadka hoggaamiyo macquul maaha haddaa caytantay afkaa ku caytantay adaa iskale anugu ma caytamo laakiin waxaan ku leeyahay mas-uuliyadda a haysanin u qalma maahin intaas waxaa ii dheer haddaan ku soo noqdo barnaamijka ummadda Soomaaliyeed Soomaali dhibaatada maanta haysa waa garan kartaan weli lagama fariisanoo lama dhihin dhibaatadana haysa xaggee ka timi
dhibaatadana hayso waxay ka timid ma aha madaxweynayaashii Soomaaliyeed ee Maxamed Siyaad kadib iska bedelay dalka inay wada xumaayeen waa fiicnaayeen laakiin dhibtu waxay ka timid xilligii kala guurka annagoon soo marin ayaan dowladnimadii ku boodnay xilliga kala guurka marka wuxuu leeyahay astaamahaasoon la buuxinin haddii dowladnimada aado dowladnimadii ma dhismayso mar walba waa jaban tahay cadowgii ummadda Soomaaliyeedna uu ka faa'iideysanayaa dowladdaas jaban waana og yihiin internationalka waxa laga booday ee mar walba ay dowladda ka dhismi laada waxaa ka mid ah haddaan fasiro xilliga kala guurka in la habeeyo sharcigii in la habeeyo baarlamaankii in la habeeyo ciidamadii haddaan waqtiga xilliga kala guurka intaa la dhisin dowlad looma gudbi karo hadda waxaa taagan ciidamadii oo kala daadsan baarlamaankii oo fadlan ku shubo iyo sharci oonan jirin maxaa dhacay koorta supreme nooma dhisna ama supreme court wax la yidhaahdo meel la aado iyo meel la wajaho midna male marka arrimahaas oo dhan laga booday dowladnimaa lagu degdegay dowladnimadii lagu degdegayna waxay keentay in faraqa la isku dhago haddii sharci lagu kala bixi lahaana sharciga oona jirin haddii ummadda sharci markuu jiro waa kala baqdaa maxaa dhacay sharci saxa markuu jiro qofka waxaa la taagayaa maxkamad dembigiisuu qaadanayaa hadduuna sharci jirin dalku waa baaba hadduusan ciidan jirin waxaa meeshaan yaallo sharci ciidanka u dhisan oo ah ciidan hadduu jirin dowlad ma dhismi karto dowladdana ma istaagnaan karto hadduuna ciidan jirin duruufahaas oo dhan marka waxay kabi lahaayeen dowladda mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed horumarka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka rajaynayaa marka in waxaas dib loogu noqdo oo la saxo si loo helo dowlad cagaheeda isku taagta ka adag cadowgeeda magacii sharafka ummadda Soomaaliyeed naga kacdoonka shacabka Hiiraan la yiraahdaa kama tanasulin arrintii aanu istaagnay nin walba uu dhagahaaga haddaba ku hayso naga dad u yimid in la gato maahin waana ka weynahay in la gato lacag waxay tarta male karaama wax tarta sharafa wax tara masiirka ayaa wax tara waxaan raadinaynaa karaamo iyo masiirka ummadda reer Hiiraan marka lacagba ma goysada qiimo lamida maba la helaayaba intaas in marka dadku isgeliyo waxbay gadanayaan waa la gadanayaa waxaas dadka maskaxdooda inay ka saaraan aan rabaa waxaan nimid xamar waxaan u nimid dowladda heshiisaa noo wada socda heshiiskaas waa mid u faa'iideynayo ummadda reer Hiiraan heshiiskaas wuxuu noqon doonaa mid labada dhinacba laga istaago excuse me heshiiskaas heshiis iftiin u soo baxay oo noqon doono ummadda reer Hiiraan waay waxaa kaloo meesha la garab dhigay nimankii waa la xirxiray nimankii dhibaatay ku jiraan cidna nama xirin ayaan daro dadka warkaas wada si fiican aan naloo soo dhaweeyey oo sharaf leh gogol qurxan oo gogol Soomaaliyeed ah ayaa naloo fiidiyoon fariisanay annagana dadaalkayaga wuxuu noqon doonaa
in aan ka dadaalno inuuna qaranka dumin inaan ka dadaalno wixii duminayey inaan ilaa ka joog waxba ma ogin soomaaliya dhibaatadan 40 sano ay ku jirto waxaa keenay qarankii aan duminay mid kale yaan la dumin inta waxa ii dheer waxa waaye inaan ka talino samaha Soomaaliyeed inaan ka talino dadka Soomaaliyeed oo aan ka turjurno baahidooda dhinac walba ay tahay waxbarasho haday tahay haday caafimaad tahay iyo haday dhaqaale taaba waxa aad u badnaa baarlamaan dhan oo soo dhisanay inuu ku soo dhismay laaluush xaraan meesha markuu yimid oo xaraan dayday asagana Soomaalidu waxay u bixisay magac la yiraahdo fadlan ku shubo intay jirto baarlamaan la yiraahdo Soomaali inay hagaagtayaan laga yaabay hadda waxa yaala oo xamar ugu imid isqabad dawladda waxaan u taaganahay in isqabadkaas aan ka dhex raadino heshiis Soomaali inay meel wada aado in la isu tanasulo waxa adiga aad la ciishoon tahay ama la xanaaqsan tahay ummadda Soomaaliyeed dhibaato ka soo gaaraysa marka dadka in loo tanasulo oo shacabka loo tanasulo oo gadaal wax loo fiiriyo ay xaqiiqadu dhabta tahay nin walba hadduu meeshiisa isku adkeeyo marka uusan dadka fiirin waxay noqonaysaa dana shakhsiya in dadka iyo dalka loo baabi'iyo waxaan annaga mar walba u tanaasulaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan shaqo la qabanaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan u taaganahay qaran inuu dumin dambe waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxweyne Farmaajo sida uu noo soo dhaweeyay ee sharaf kale mahad celin weyn oo balaaran aan ka bixinayaa ummadda reer Hiiraan oo dhan waa u sheegayaa in si sharaf leh oo maamuus leh oo Soomaalinimo leh naloo soo dhaweeyay dhinaca kale ra'iisul wasaaraha wali waxba kama hayno laakiin markaan is aragno ayuu wada hadalku noo bilaaban doonaa Farmaajo waxaan ugu nimid oo reer Hiiraan ah waa noo dhameeyay wixii qabyacana waa la dhameystiraa waxaan leeyahay marka Soomaaliyeed waa u jeedaan meesha arrin u taalo arrintaasna wax ka qabaday u baahan tahay waxaa shaqadaas qaban waayay maamul goboleedyadii waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ugu guuleeyo qabto oon ismaqal iyo dhibaatadii oon meesha ka saaro oo dawladda ay gacnaha isqabsato in Ilaahay igu hanuuniyo Soomaaliya qaxootiye noqotay dhibaato ku dhacday dalal ajnabi ay tagtay ilmihii baa ka baaba'ay ayagii baa baaba'ay in dib loo fiiriyo loo turaa la rabaa in la iska qabsada lama rabo in la heshiiyaa la rabaa kuwii halkan joogay laftigooda waddan ma haystaan ay baabuurta marto daawo ma haystaan cunto ma haystaan waxaasoo dhan baa la rabay in laga fikiro laakiin ma ahayn in laga fikiro waxaan aniga ma ogolay iyo waxaan aniga ma ogolay taas maaha masiir Soomaaliyeed laguma dhisi karo waa in wax la isla ogolaadaa
وإن وحمل سردقة وإن ليس تنازلا سيد عنا قانون سو تنازلنا وكله ونقرن كوجو تنازلنا والأمة جوجنا ماشى دت سومالي عن هاي نجمع حكتان دولة نمذا waxaad dawlad u tihiin dadka u shaqaysaan waa ceeb dadkii aad u shaqayseen hortooda inaad isku qabsataan waxaan leeyahay marka farmaajo waa is aragnay arrintaas waxba kama uu qabo soomaalinimo wuu istaagay ra-iisul wasaarahana insha allah waa is arki doonaa isagana waxaan leenahay soomaali fiiri u istaag soomaali wixii ku dhibaaya laq ha sii daynin wax badanoo ku dhibo waa jiraan waa ognahay laakiin laq haddaadan laqi karin waxaan ku dadaalaynaa inaan wax isu sheegno wax isu sharaxno si wanaagga loo gaaro marnaba looma dulqaadan karo isqabqabsi dawladdii hore iska qabsatay farmaajo tii ka horreysay tii kale iska qabsatay mid walbaa iska qabsata yacni dhibaatadaas isqabqabsiga leh oo daba dheeraatay waxay ku dhacaysaa ummadda soomaaliyeed markay ku dhacaysane waxay ugu dhacaysaa qodobadan soo socda socially economically iyo politically ugu dhacaysaa macnaheeda markaan fasiro mujtamacii ummaddii ayuu dhibta ku dhacayaa siyaasiyan gaaladiina isu keendiri jirtay ee ka faa'iidaysanaysa annaga soomaali ah haddaan isu tanasuli weyno ismaqli weyno shisheeyaa naga faa'iidaysanaya waa inaan hor istaagnaa marka qarannimadayada lama soo faragelin karo hadda faraha lagula jiraa internationalka faraha kula jiro qaran buuxa ma noqon karna marka si aan qarannimo buuxda u helno waa inaan annaga isu sabarnaa oo isu tanaasulnaa oo waxaa naga weyn iyo culayskana saaran sidaan iskaga qaadi lahayn aan ka fikirnaa waxaan warkayga ku soo gaabinayaa waxa waaye soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha midowdo soomaaliya cadowgeeda allaha qabto soomaaliya meel kastay jirto kuwa koreeya allaha ka dhigo dawladnimadana allaha noo ilaaliyo inta ciidamada beledweyne la geeyey mowqifkayga waxaa waaye ciidan waa ciidan anaa nin ciidan aan ahay ciidankaas beledweyne la geeyey hadduu si soomaalinimaa u shaqayn waayo waa soo celinaynaa hadduu soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn